السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا لوحات كسودو واتان سومالي تي في أو كداوتين واشنطن كاونتي channel كويا لواتنات شنبر ويجي أو سنينتا أفرتي بركة قلبنمو أربعة صباح دي لحدة قميصتا سجالكي بركة هبينمو إيو سبدي دا طبانك إيو بركة صباحنمو waxaan halkan marti noogu ah maanta studio saa u jeedina wada taqaaniin oo ah Maxamed Yuusuf waxa kale la fadhiya Maxamed Shirwac waxa la jooga Suleymaan Munye oo wada taqaaniin xagga magaalada Portland oo noogu soo gaaray ku soo dhawaada dhamaantiinaba Somali TV waa mahadsantahay saa loo socotiin wiigi hore waxaan soo duubnay masaajidka Nuur برنامج كسابسن سيد رمضان كما عرفتي لو محاضرة لو جديو أما كميدا صلاة يوم عرفتي أفريقيا سيد ماشس لوجوان فراي مركب برنامج كاس إنت أنا مركب هاري نيسو قدبين وحان فرصة نسيه مع أنت اللي يردان إن ما عرفتي كهلان حق ديني جماعة لا قفل بسوا أركو إن رمضان كا وقت كان مركب وحن كبلاونا مركب هاري صاحب كان غالي محمد يوسف كسودوا سومالي تي في ومahadsantahay mahad waxaan u mahad celinayaa Xaashi Coffee saaxiibkeen Axmed Xaashi oo nagu soo dhaweeyay oo noo ogolaaday maanta inaan barnaamijkan inta ku duubno mid kale Ilaahay baa mahad leh soonkii wuxuu marayaa 22 waxa ka dhiman waa 9 maalmood marka waxa way sidii hore maaragtay magaalada wax iska bedelinaysan jirin baan maaragtay malaynayaa dadkii waxay u badan yihiin in cibaadaysanayso masaajidada ku jirto qof walba maaragtay inuu ka faa'iideysto fursadan qaaliga ah oo maaragtay sanadkii mar ay soo marto inuu maaragtay qofkii cibaadada maaragtay uu badiyo waana ku faraxsanahay maaragtay inaan soo soonnay 22 maalmood sagaalka noo dhiman oo maaragtay Ilaahay maaragtay aan noo fududeeyo marka waxaan jeclahay inuu ku dhamaan doono maaragtay si farxad leh oo dad badan ay maaragtay misgrayn doonaan markuu dhamaado soonka ma santahay Maxamed Yuusuf Maxamed Shirwac bal noogu waran balaadina bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxaan u mahad celinayaa saaxiibkay mahad iyo dhammaan dadka daawanayo barnaamijka horta alxamdulillah bil khayr baan ku jirnaa oo bil barakeysan Ilaahay sanadkan sanadkiisa kale Ilaahayna gaarsiiyo anagoo caafimaad qabna alxamdulillah marka insha Allah horta soonkan soon adag buu ahaa sanadada soo socdana uu sii yara adkaani maadaama waqtigu dheer yahay afurka laakiin alxamdulillah Ilaahay baan u mahad celinaynaa mid kale fursad qaali ah weyn sida walaalkay Maxamed Yuusuf uga hadlay marka inaan ka wada faa'iideysano waa run hadee waa mahadsantahay sidoo kale la socotiin Suleymaan Munye oo yimid North Portland maadaama intaan aan deganahay Beaverton Washington County marka bal Ramadan see u aragtaa wallahi horta assalaamu alaykum walaalahay Soomaaliyeed maadaama intaan barnaamijkan ugu sameynayno marka soon karto bil khayr alxamdulillah marka qofo adiga خير لما تخانا يو لا نقارسي متخانا أقارتا مركا إنكستو سي ولا لي دين رمضان كإنكستو حوغا إنكستو أتكد لكن الحمد لله حيد نبكي وحيدنا حوغا واسو مودني مركا إنت دماني متخانا إلهي وسيدي سمسم متخانا سيدي خير إلهي ودميو إن شاء الله مركا تنكلني إلهي وحاك رجينا متخانا ما تخبني ما سنتاي سليمان mid kale aan rabaa inaan weydiiyo waxa kamid ah wadankii Soomaaliya iyo wadankan la joogo maanta xagga Ramadaanka isku mid ma ahan sababtoo waxa la socotiin Soomaaliya bisha Ramadaanka oo dhan habeenkii la soo jeedaa maalinta dhan waa la jiifaayo waxa la sugayaa afurka waqtiga afurka la kacaya fahmaysaa qof walba gurigiisa u jiifaa laakiin meesha Mareykanka waa ka duwan tahay waqtigaas saa la socotiin halkan waa la shaqeeyaa oo bildan qof shaqo kama maqnaan karo ya marka bal arintaas adinka see maaragtay ula qabsateen inta wallahi maxaa runta waayo wixii
comparison lama samayn karo lasma barbar dhigi karo wadankii aan maaragtay Soomaaliya aan ka nimid wadan wuxuu ahaa dadkii oo dhan ay maaragtay wada muslim ay yihiin waxa laga yaabaa soonkii maaragtay inuu aad dareentid inay maaragtay soon ay tahay wadankan sida ogtahay waa wadan Christian ah alxamdulillah ilaah baa maxay radaa noo sahlay inaan maaragtay aan ku soonno tan kale in shaqadii iyo soonkii iyo maaragtay la isku balance gareeyo marka hore marka cusub tahay xogaa inay adkaato way dhici kartaa laakiin muddo markaad meesha degan tahay waa iskala qabsanaysaa sidii hore loo yiri nin tuurle sida u seexda u yaqaan marka waa manage garayn kartaa oo maxaa la yiraahdaa waqti maaragtay shaqadii iyo cibaadadii kaleento waa isku balance garayn kartaa taas maaragtay ma santahay maxamed yuusuf maxamed shirwac كل هذه دام كوسو نقول هذا وقتك سومالي وصدقنا كوي 10 ساعة مالها سومالنا وقتك لك جنان جري اسمنا بدش حد أنا واركتي وحلوسي ساعة أفري 10 ساعة 20 ساعة لحي 10 ساعة ولا سووا كور كيس كاس والله إن هرت الصبر بدن بيوبها هنتهي مركا واسك صبرنا وضكنا والله قبصني دوانا كو خصبنا هنا شقي سنو مركا شقدي يسونكي adkaysi badan bay u baahan tahay marka waa iska adkaysanaa oo waqtigu dheer yahay aad iyo aad ilaa waqti sanad 5 sano 6 sano ka hor waxa la afuri jiray waxa la soomi jiray un malaha 8 saacadood 9 saacadood baa la soomi jiray marka waqti hadda uu dheeraa maadaama uu wuxuu ku soo toosay waqti kulul ku soo toosay soonka marka waa iska sabrnaa un iimaankeenu waa taas waxaan rabaa Salmaan inaan meeshan ka wareysto wax kamid ah رمضان كان بيشان لو جيرو dad badan oo waxa jira la seeyay 4 subaxnimo mise 5 aroornimo shaqo gala markii aan furaan dadkaas cashada ay casheeyaan masaajidka aadaan taraawixda ay tukanayaan taraawixda ilaa ma qasaca laga soo baxaya 11:15 markuu 11:15 guriga laga yaabaa inuu yimaado habeenkii saqdhexe wax yar seexdo afartii uu kaco suxuur shaqadiina maaragtay hore ka aado marka bal arimahaas noo war maadaama aad ka shaqaysid inta oo arisidii ka cadilaa waxa weey adiga carruurta ayaa iskoolaadka geeysa Soomaa carruurta iskoolaadka geeyaha wala arintaas arin oo xogaa iska culus waaye at the same time waa loo baahan yahay wax loo baahan waaye waanu qasbanaynaa shaqeynaan kacno marka inkastoo asaasay tahay oo laga soo baxayo taraawixda salaada adiga 12 ilaa 12 bar وحوغير ناب ولا سكان لسكسحنا سيم تام لسكعايف توما ساعة برا دقا سحورت استمرك شخان بحا إنكست إسكت بدن تاي لكن وحواي ولا خوان نلشي وانا لو خصبين شغلين لهذا رمضان كان هو قصبنا وواجباب ونصارن أنا مركان صونو إنكست ساسو تاي مركا لا كير مركا إيمان يو صبر هيو بهان تاي مركا إن شاء الله مركا وانا ما دون توحي سان وسعودون تلما وقت الهواي marka intaan saanay taayna marka waxaan sembar fiican ma taqaana ina ilaalu maadiyo oo maad celiyo kulli waqtigu iska ordaayo ku darsan lahaa waqtiga dheer waa runtaayo wuxuu ku soo aaday xilli samar ah teeda kale markuu soonka bilaawanayay san jeclahay iskuulaadka way xirnaayeen ama jaamacadii han noqdaan ama iskuulaadkii public schoolkii han noqdo wax la furay waa weegan aan jeclahay waxa jaamacadihiina waxay furmayaan week dambe iyo week ku sii xigo marka maaragtay waa ilaahay naxariistiis waay waa xirada in iskuulkii xiran uu ku soo aado taasna waxa waaye maaragtay in laga faa'iideysto maaragtay fursadaad wanaagsan waa isku soo aaday dadweynaha daawanaya waxa uu sheegay barnaamijka aan daawanaysiin waa Somali TV saa ula socotiin wareysiyadan oo kale daarbtiin mar walba aan nagala soo qayb gali kartiin taleefankeena halkaas ku qoran yahay waxa weeye 5 eber 3 8 8 maadaama aan kii hore Nashville aan bedelnay dadka ay la yaabeen numberkan oo aan ahayn Beaverton marka numberkii waa naga bedelnay number local hadda halkaas aad ka arkaysid naga soo wici kartiin sidoo kale kafeegan iyo aad u jeedid waxa lagu marti qaaday walaalkeen xaashi cafe oo meel cusub ah markaasna aad buu ugu mahadsan yahay maxamed shirwa
afurka maanta noo waran maxaa ku afurtay Soomaaliya aragmayna ogaano iyo inta wax ku kala duwan yihiin horta alxamdulillah waxaan afurnay sidii loo afuri jiray waagii hore Soomaaliya ugu afuri jirnay waxba isma bedelin intii baa cunaa waqti baa kala duwan sambuski intii la cuni jiray wixii oo dhan waa cunaa alxamdulillah horta hal meel ma dhigi karno hal meel badan ka afurnaa marna masaajidkan ka afurnaa mar dhalinyarada ku casuumayana ka afurnaa mar familiyada ku casuumayana ka afurnaa mar gurigan ka afuraa marka wuxuu ku fiican tahay in maxaa la lahaa qofka haduu ku martiqaado uu afurku ugu yeero horta waxa ajar badan waaye waana xilli waa marka kaliya aan si fiican isku aragno dhalinyarada magaalada iyo ehelada marka isku bishaano bil khayrkaan baa sarnaa marka waxaan oranayaa wallahi de wixii la cuni jiro baa cunaa waxba isma bedelin wixii ziyaada ahna de waska rabnaa okay maadaama aan joogno wadanka Mareykanka oo la socotiin cuntada ilaahay u nabciyay meel kasta iska buuxdo walaalkaad u imaanaysaa burkiya yaala wax walba yaala meel kasta aad tagtid maanta kama walwaleysid cunto soo la socotiin wadan waxaan ka nimid aad gaajo u saameysay dad baa laga yaabaa inaysan haysanba waxay ku anfuraan biyo ama iska cabaan ma xasuusitiin dadkaas ma laga yaabaa inaad maaragtay caawisin dadkii Soomaaliya waxaan ku wareejinayaa meeshan Maxamed Yusuf dabcan ha oo maaragtay qof family walba Soomaali ah dad baa wadankii ku haray baa jiro marka xirada dad baa ka maqan sida sheegtay wadankan maaragtay ma jiro qof gaajo u dhimanayo nin walbo xirada kan shaqeyn xataa maaragtay meel wax ka cuno ma waynayo dad wadankii waxa ku haray iska gaajaysan oo wadankii 20 sano dagaal iyo dhibaato ku jira marka way jiraan dad badan oo maaragtay Soomaaliya oo waxyaabo maaragtay dadkii afuriyo dabcan qof Soomaaliya had su'aashan hadda aan weydiiso kale inta ku yiraahdo waxba qof maaragtay ma afuriyo ama waxba qof uma diro dabcan waa qof maxal raada maskax kale ku shaqeynayo oo maaragtay qof walba wuxuu yaqaanaa qof dhibaataysan sax dhibaatadiina Soomaaliya aad bay u badan tahay marka waxaan maaragtay iyagana aan maaragtay aan Ilaahay uga baryaynaa maaragtay risqigiisa inuu u furo wixii loo tiri karana waa maaragtay ha loo dhiibo qofkii maaragtay oo yaqaan qof dhibaataysan oo dhiibo afuriyo waa xilliga kaliya maaragtay qeyrka maaragtay qeyrka ugu badan oo helaya qofkii afuriyo qof sooman marka waa fursad maaragtay in laga faa'iideysto waa fahmay Maxamed iyo Suleymaan waxaan ka hadlaynaa ma ahan dadkii qaraabada iyo lacag loo diray ma ka hadlayno waxaan ka hadlaynaa dadkaada aqoon dad baa jira masaajidaha yimaada oo arunaya dad maaragtay dhibaataysan dadkaas oo kale ma la xiriirtiin wax ma u dirtiin masaajidka markaad joogtiin balse u gaarsiisiin wax wallahi masaajidka markaan joogno sadaqada kul waa loo khasbanyaa waa wax nasaaran waana dhibna insha Allah waan loo dhiiba marka inkastoo aan dadkaas oo isnoqonin aan xiriir waxaan lahaynin December da muslimna walaal waxaan isku daynaa dadka dhibaataysan December soo ku caawin lahayna way aan kulan ku caawin lahayni masaajidka December waa isku daynaa isku soo ururiyaan oo qaf ahaan la yaqaan loo diro Soomaaliya oo in masaajidku wax geey dadka oo mataqaana dhibaataysan in lagu caawino waxaas kullu wax walba mataqaana waan sameynaa marka inkastoo aan dadka aan xiriiraan lahaynin adkastii way walaala leeyahay muslimna leeyahay adduunka meel walba la joogo waa loo baahan in is caawino marka insha Allah ana ali tawartaan waxaan sameyn karnaa waan sameynaa marka insha Allah ilaahayna mataqaana وزيادة زادي حاجري soonka markuu bilaawanayay xaafadan Beaverton aan deganahay dad baa jiray dhalinyaro iyo maaragtay lacag iska aruurisay oo maaragtay u direysay dadka ku dhibaataysan Soomaaliya marka run ahaantii dadka Soomaalida waa dad gacan furan dad maaragtay qofkii la weydiiyaba qofkii waxaaya marka uu ku diray alxamdulillah maaragtay way jiraan dad isxilqaamay oo dadku u aruuriya maaragtay lacag inay ku yimaadaan lacag ka qaado iyagana maaragtay waxaan leenahay Ilaahay khayr hadin kugu bedelo shaqada haysaan wallahi shaqo wanaagsan bay hayaan marka dad badan ka faa'iideystay ma santiin dhamaantiin iidi waxa ka dhiman 9 bari
أما سديد ها أما سديد كريمان ساولو سعتين إيدا ودنكينا إيه أنت سكمين ما ساول معلمت إيدا هبين كذا وحنا كلها فرحدة ودنك جرتا فمسا وحنا كم مقلاني نحمر روح على سمي جرا عروضة meelaha carwada la aadi jiray ciyaalka la geyn jiray maalintaas ciidda dadka si waxa u arkaysaa Mareykankan in maalin caadi ah ay tahay run ahaantii ama hadday u bataan dad masaajidka inay kusoo tukadaan markay tukadaan hore ay shaqadii ka galayaan laakiin wax ciyaalkii wadaaya male dad way jiraan oo ciyaalka meelaha geeyo ka soo farxiya mana arkaysid meeshan qofku way imaanayo ku dhahay ciid mubaarak sababtoo xagga markii la joogay wala isku imaan jiray lacag baa jabka la soo gashin jiray cunug ku yimaado lacag baa la siin jiray ama nanac ama wax inta bal waxaan ka wareysanaa maxamed see iidan maaragtay waqtiga u qaadataa shakhsi ahaan masa shakhsi ahaan haddaan u hadlo ciidda waxaan u qaataa horta masaajidada badanaa waxay qaban qaabiyaan picnic ama inay dadka isku keenaan meel dadka isugu yimaadaan dadka laga farxiyo oo cunto la keeno lagu sheekaysto oo lagu ciido oo yani ma noqon karo picnic area ahaan laakiin yani saan rabno inuu noqoto aan ciid ahaan uga dhigano meelaan ku ciidno marka markii la isku yimaado haa marka dadka markay salaada soo tukadaan waxaan sameynaa masaajidka warqad bay bixiyaan oo dhahaan dadka meeshaas la iskugu yimaado picnicaas la iskugu yimaado sidii dadka ehladii qaraabadii asxaabtii isku arkaan iyo familiyadii carruurtii isugu farxaan sida carruurtan ugu dareemaan inay ciid tahay maadaama ay arkaynin dhul qurbana waa joognaa ay u arkeen ciiddii marka ciid ahaan si u dareemaan badanaa masaajidada iyo communityyaasha baa qabanqaabiyo arrimahaas marka saas baan ku tagaa aan kaga qayb galaa ciid ahaan may maalinta ciidda laakiin of waa la qaadan karaa maalin farxad aad iyo waa maalinteennii waa maalinteenu ismid faraxsan maalin ciid ilmeydan kulu faraxsan marka waa ku qasbanaa waxaan leedihiin ciidan soo socda of baan wada qaadanayna soo ma waa ku qasbannahay ma adiba ku casuumanahay badan haddaan ma casuumana ma waan ku qaadanayna saa la socotiin ana meeshan waxaan ku soo biiray TV-gana arkaysiin waxaan isku dayaynaa inaan maaragtay Ramadaanka markuu dhamaado ciidda ama salaadii aan ka soo duubno oo dadka tusno meesha faraxsan aad ka daawatiin barnaamijkan ay salaamaha halkan TV-ga ay maaragtay ka soo gudbiyaan waxaan isku dayaynaa wiigii mar ama labada wiig mar inaan meeshan oo ninka walaalkeena aan ugu casuumay Axmed Xaashi inaan imaano haddii rabto barnaamijyada ka soo qayb gashid waa soo dhawaan imaada waa ni baahanahay aad baa u mahadsantiin Maxamed Yuusuf waqtigan aan siisay Maxamed Sharwac Sulaymaan Mooye dhammaantiin waxaan leenahay barnaamijka hadda daawan doontiin waa masaajidka Nuur muxaadarada aan ka soo duubay iyo maxaa la yiraahdaa soonka sida xagga loo afuray tiknikada gadaal waxaan noo jooga Yaasir Shankar oo ah ninka kamerada noo haya ama codka maaragtay qabanqaabinayo dhan asna aad buu u mahadsan yahay ninka meesha ugu casuumaynaya Axmed Xaashin maaragtay Xaashi Coffee waa u mahad celinaynaa adigana waa ku mahad celinaynaa fursadda aad na siisay oo maaragtay dadkii maaragtay aan la hadalno waa mahadsan tahay daawadayaal mar kale Som TV haween wanaagsan بسم الله الرحمن الرحيم مقعي waxaa la yiraahdaa Shacali masaajid kan gelisan ku yaalo yaan ma taqaanaa gudigiisa madaxana u ahay dadkan ila fadhiyana jamaacadii masaajidka ka mid yihiin ninkan magaciisa waxaa la yiraahdaa Sheekh Ismaaciil wadaadkan kale ku xiga waxaa la yiraahdaa magaciisa Sheekh Burci ninkan waxaa la yiraahdaa magaciisa Sheekh Saadaal ninkan taagan magaciisa waxaa la yiraahdaa Cabdalla Sheekh ninka ku xiga falaanada gaduudan ag fadhiya waxaa la yiraahdaa asagana magaciisa Xasan Cali marka waa jamaacadii masaajidka oo kulman maadaama hadda salaadii casarka aan ka soo baxnay haddana waxaan dadqaana xogaa sugaynaa waqtigii afurka noo soo dhow si aan xogaa jamaacadii meesha aan ugu sii
munaaqashoonno wixii ramadaanta ku saabsanaa ramadaanta maanta sida tirada ay tahay waxaan u malaynayaa inuu 10 yahay ramadaantu aad u barakaysan yahay aaduna u qaboob yahay sidaan malaynaynin ma aha maadaama uu saamar xun ku soo toosay waxaan islahayn ramadaantii waa idinka kala go'aysaa ma hayn kartaan oo kulaali dhib baad kala kulmaysaan alxamdulilah ilaahay waa noo fududeeyey ilaa maanta hadda wax dareena oo culus aan kala kulanay ramadaanta xaggiisa ma jiro alxamdulilah ilaahay waxaan ka tugaynaa inta kaloo dhimanay inuu mataqaanaa sidaas si ka fiican noogu dhammaystiro barnaamijyada ramadaanka haddaan ka baxo insha allah masaajidkan wuxuu furan yahay muddo ilaa hadda 6 sano ku dhowaada intaas jameecooyin fara badana mataqaanaa ku dukada imaamyo badan oo uu leeyahay oo dugsi oo quraana oo ardada Soomaalida iyo ardada ajnabiga kale mataqaanaa islaamka wax lagu baro ilaa tiro gaaraysa 150 arday wax lagu baro macallimiin waxa joogta ilaa 8 marka barnaamijyo waaweyn oo waxbarasho xagga tarbiyada islaamka ayaa ka socda marka insha Allah waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu mataqaanaa aan u helna dhaqaalihii iyo umuurtii lagu fardaami lahaa howlahaas islaamiga ayaa ka socda masaajidaha walaalkay haddii aad wax kale iga weydiinaysid arinta masaajidka iyo ramadaanta intaasaan mataqaanaa kugu soo koobay masjidka magaciisa waxaa la yidhaha masjidu an-nuur waxaa la furay sanadka markuu ahaa 2004 marka muddo ilaa adigu 6 sano kala uu furan yahay ilaa muddadaasna wax mataqaanaa account oo masaajidka ma dhaqaale weyn uu haystay maleen jamaacada ku dukata unba qarashkiisa iyo taakuleentiisa iyo maartay waxyaabihii masaajidka qurxintiisa iyo tasiilaadkiisa kulli bixinaysa ilaa haddana ayaga bixiya cid kale oo mataqaanaa dhaqaalaha haysato ama islaami ah oo naga kaalmeynaysa ilaa hadda ma jirto laakiin waxaan rajaynayaa insha Allah mustaqbalka inaan helno dad badan oo mataqaanaa ilaahay dhaqaale siiyo masaajidka ka caawinaya xagga tasiilaadka u baahan yahay inta ka horeysa hadda kulay wax culays xagga kiradiisii aan kala kulanay ma jirto ku sheegi lahaas walaal waa badiin dadka tira marba tira badanaa timaada mar walba jamaacadu waxay ka koobantaa haween fara badan oo gadaal ku dukata iyo rag fara badan oo mataqaanaa yaryar iyo waaweynba leh oo horey ku dukadaan masaajidka 2 qaybood waa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مقعي إسماعيل بالإيرا هذا waxaan ka mid ahay guddiga masjid al-nuur ayaan ka mid ahay iyo jamaacadaba waxaan nahay odayaasha masjidka xag walba oo arrin aaga qabto wixii dhibaato ku soo saacido oo anaga u istaagno wax maanta masjidka dhaqaale oo haystana ma jiro markii waqtiga la gaaro ama dhibaato la kulmana dadka islaamku baan wax nagalnaa waan u soo tuuqsanaa waxaan dhahnaa bal masjidkaas sidaa naga ah ama sidaas baan rabnaa ayaa wax naga kaalmeeya marka ardayna ilaa 150 arday baa wax ku barato oo quraanka lagu baro nin alla ninkii islaan ahna waa keensan kara caruurtiisi oo sabtigii ahada inta uu iskuulka xiran yahay yaan quraan ku barnaa ninka rabana uu keensan karaa uu furan yahay ahlan wa sahlan haddana ninkii muslim oo ilaahay wax siiyay ama sadaqa masjidka u baxsanaya ku sadaqaysanayna ahlan wa sahlan ta asagoo ilaahay xaqiisa wax u geysanayna ahlan wa sahlan uu ku soo sadaqaysan karaa account buu leeyahay bank account buu leeyahay laakiin wax dhaqaale ah bankigiisa ku jira male taana waxaan u yeelnay ninkii ama meel dheer naga jira ama rabo inuu sadaqadiisa siraysto uu yiraahdo account bankiga isiya aan wax bankiga aan idinku shubo rabo in aan sadaqadiisa la ogaanin sidaa darteed baan u yeelnay marka inta walaalahayna oo muslimna ah waxaan ka codsanaynaa in ay naga soo caawiyaan xagga dhinaca masjidka ilaahay xaqiisa wax u baxsadaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo magacii la dhahaya burci sheekh weli mugana oo waqti dhow aan ka imaaday magaalada San Diego California
muddo waxaan jooga ilaa week ilaa 2 week haddaan ku soo baaray guddiga يعني waxaan rajeynayaa in masaajidka aan weynayno haddas ilaahay karaal noqdo hadduu ilaahay dhaqaala na soo geliyo hadduu ilaahay karaal noqdo insha allah dhaqaalana waa loo baahan yahay masaajidkan asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waxaa la yidhaahaa xasan axmed cali haddee maadaama jamacadan aan ka mid nahay masaajidka horta waa in maaragtay waqtiyada ramadaanka iyo waqtiyada kaleba iskugu mid waayo cibaadada kolley maalin kastaba mid reeban ma aha sidaas daraaddeed horta macnaha dadka da'yarta ah oo waddankan ku nool amba magaaladan gaar ahaan Portland waxaa loo baahan yahay macnaha in masaajidka waqtigii faraaqada lahaayo in maaragtay lasoo buuxiyo marka sidaas daraaddeed kulley fursadaha laisku arki karana cibaadada ay waddankan u badan tahay marka haddii ilaahay idmo insha allahu khayr waxaan rajaynaynaa waqtiyada munaasibka oo waqtiyada salaadaha in masaajidka maaragtay guryaha aan lagu tukan oo la imaado masaajidka ayaa habboon sida maaragtay diinta ayna faraysa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh